qaar ka mid ah shacabka reer Jowhar ayaa waxa ay maanta ka hadleen qaabka maanta looga soomay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoona sheegay ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan maanta ay hal mar wada soomeen iyagoo ka hadlayna waxay dhaheen ما شاء الله رمضان كمان سوينا أكشن وسم الله بديسين يا الله صومي استقبل سلهين ما شاء الله سوينا أكشن وكل عي وأنا كفر أحسن هاي مسلمين كل مال والبيت الجوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بشهر رمضان الكريم وأنت وقلوب الحمد لله وعن زواجنا رمضان الكريم رمضان يا رمضان كان ما شاء الله آتي الحمد لله وحن كرجينا رمضان كسب ونكسب ونكسب حتى وحق دبلتقونا سيد السوق يضع كلام تعرير ما شاء الله رمضان كسوق على القيمة مقالك الحمد لله خير ما شاء الله مركز مقالة الجوهر ملاقوة الصومين مسخلافة ما شاء الله بدنان وحبخب جيب سجاشن نشان إن الصومين أنجعلها سيد حتى بلود ليدو كلا لا درن ماهني dadka kale wanaagsan oo sameeyay Ramadaankii hore iyo Ramadaankan maxay ku duubeen oo xasuusin kartaa wallahi sida buuxda hada la fiiriyo Ramadaankan waa Ramadaanul khayr hada la fiiriyo ma sha Allah bisha Ramadaan waa bil Ramadaan aan sugeynay alxamdulillah bishaana dadka dhamaan inay soomeeyeen hadii soomneen dadka sooman al khayr badan dadka soomneen insha Allah birinay si qabtaan dhanka kale waxa ka hadlay Sheikh Ahmed Haji Ibrahim Ziid oo ah gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka hadlay bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan oo maanta bilow u ah shacabka reer Jowhar iyo ummadda muslimiinta oo idil waxa uu sheegay in Ramadaankii hore laga arkay Jowhar hase yeeshee uu tilmaamay in bishani aragtideeda ay tahay mid tirada 30ka ku buuxsantay isla markaana xiriir u la sameeyay wasaaradda diinta iyo qaafta dawladda Soomaaliya alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd maanta waxa sidaba haftaan u hambalyeynaa dhamaan ummadda Soomaali maanta waa maalintii ugu horeysay oo bishii Ramadaanka oo maanta sabti ku beegan runtii markii aan ka hadalno qaabka oo maanta ummadda Soomaaliya ay soo meeshay xukunka iyo sida lagu saleeyay markii aan wax yar aan ka sheego Ramadaanku wuxuu imaan karaa ama soonkiisa uu imaan karaa laba walxado ku imaanaa sida shariicada ay tahay marka ugu horeyso in la arko bisha markay 29 ay ku dhamaato 29 ay tahay in bisha la fiiriyo markaas waa la fiirinaa marka hadii bishii uu arko hal nin oo muslim ah oo cadeeyo ayadoo aan la dhaarinin shariicadu waxay qabtaa in markaas ummadda Soomaaliyeed ay soomto faman shahida minkum shahra falyasum yani shahuudu shahradaas waxa waaye habeenka 29 waa in la fiiriyaa qasab ay tahay in la fiiriyaa hadii la arko markaas waajib ay tahay in markaas la soomo sidana uu yiri soomo liru'yati al-hilal ku sooma bisha hadad aragtaan sawaa'un ama aad bisha soonka ama bisha shawaal baato waxa waajib in la arko macnaha habeenkii jumcada waxa isugu yimid dhamaan kibaarul ulama Soomaaliya khaasatan oo gobolka Banaadir waxay ku kulmeen xarunta weyn oo wasaaradda diiniyada iyo uqaafta ayadoo markaas laga munaaqashoonayo sida la yeeli lahay bisha Ramadaan ee imika 2017 ee la filnay in Soomaaliya waxa meeshii laga helay ama la arkay ama cadaatay Soomaaliya laga in bishii oo Shacbaan ee la arkay habeenkii Khamiista in la arkay marka hadii marba habeenkii Khamiista la arkay ee la isku raacay ummadda badan ay arkeen khaasatan xamarna oo ka arkeen mudarris ah oo caam oo la yaqaan masaajid weyn hadaba ku aqrinay muxuu ahaa ii sheeg meesha la yiraahdo Bakara iyo xirtiis markay aragtay waxa markaas wasaaradda diinida oo qaabta ay xukumeen in habeenkii jumcada 30 ay ku beegan tahay waxa la yiraahdaa markaas 29 oo Khamiis ah iyo habeenkii jumcada lagu daro oo markaas 30 noqonayso markaas uma baahan in la fiiriyo
taas uma baahno in la arko haddana iyadoo saas ayaa haddana xali kathiiran min alqura meelo badan oo tuulooyinka ka mid ayaa laga arkay marka sidaa darteed ayaa lagu xukumay in maanta lagu soomo soonkana aad buu maanta mataqaanaa mid oo aad iyo aad yani itifaaq lagu yahay uu yahay oo saas loo soomay maanta ayaa dadka muslimiinta badankood waxa ay u ahayd maalintii koowaad ee bishii barakeysneed ee Ramadaan. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Deqalfa, Juba Shabeelle News, magaalada Jowhar.